munaasabad ballaaran oo habeenkii xalay lagu qabtay hoteelka Daala ee magaalada Burco ayaa ahayd mid uu xisbiga wadani ku aqbalayay 43 musharax oo u taagan golayaasha wakiilada ee gobolka Togdheer iyo golayaasha deegaanka ee degmooyinka Burco Oodweyne iyo sidoo kale Buuhoodle isla markaana xisbiga uga tartami doona doorashooyinka soo socda madashani oo ahayd mid si heersara loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sarreysa xisbiga mucaaradka ee wadani Salaadiin Cuqaal musharaxiinta loo qabtay madashan iyo sidoo kale boqolaal kamid ah taageerayaashooda ugu horeynba waxa halka ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer siyaasiyiin madax dhaqameed iyo sidoo kale qaar kamid ah musharaxiintii madasha loo qabtay madashani waxa weeye madal lagu soo bandhigayo musharaxiintii gobolka Togdheer uga qayb galaysay doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka degmada Burco degmada Oodweyne iyo degmada Buuhoodle caawa halka waxa inoo fadhiya 43 musharax oo xisbiga wadani uga qayb gali doona tartanka doorashooyinka waxaan filayaa musharaxiinta halkan fadhida ee aan ka mid ka ahay ee xisbiga wadani ka tartamaya inay noqon doonaan insha Allah qaar dalka iyo dadkaba anfaca xildhibaanada golaha baarlamaanka ee gobolka Togdheer dhammaan haysta soo taagaan halkan ha soo wareegaan si loo gudoobo oo xisbigu u gudoobo waajib baynu kala qaadanaynaa xildhibaanadu haddaanu nahay dadkii waday bulshadanu waxay u soo tafaxaydatay inay idin doorto oo idin soo saarto idinkana waxa la idinka sugayaa inay ummadii idin dooratay sidii kuwii hore yeeleen inaydan yeelin waxaa la idinka baahan yahay dadaal fara badan oo marka hore aad u gashaan sidii aad u soo bixi lahaydeen annaguna waanu idin garab taagannahay waana idinla shaqaynaynaa arrintu maaha xafladda hawshii way hadhay waa wada dheer baynu maraynaa hala diyaar garoobo musharaxiinta qiimaha leh ee halkaa ku jira ee siyaasad ruuga ah in aynu u codayno oo aynu si fiican u soo saaro soo diyaar uma nihin aniga oo ku hadlaya afka beesha Burco ee weyn marlabaadkana u sii gudbinaya beesha Daahir Faarax waxaan ku kabayaa heestii ahayd soo dhigay wadani annagu 3 nin baanu keennay xisbiga aanu keennay dadka caawayina maanu hayna wadani ahaa oo madaxweynihii ka qayb galay doorashadiisii loo yaala dadaal iyo inaynu gacmaha is wada qabsano sidii namadaasi ay u soo bixi lahaayeen anigoo ku hadlaya magaca musharaxiinta waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha xisbiga iyo hoggaanka iyo dhammaan madaxdii la socotayba safarkii dheeraa ay nooga yimaadeen waxaan sheegayaa reer Burco isku duubni xildhibaanadana keenteen waxaan rajaynayaa inay noqdaan qaar qaran taariikhda ku galo iftinku had iyo jeer wuxuu ka bilaabmaa Togdheer foodkiina la seexanina ee soo saara dadka gobol baynu isugu faanaynaa anigu iminka sanaag baanu ka yimi Burcoy way noo tartan haddaanu xisbiga nahay annaguna si fiican ayaanu u gudoomanay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu annagu xisbigaana waafajiyo dadka na igmaday inaanu ku guuleysano kuwii dadka wuxuu qaban lahaa ee nidaam u samayn lahaa waxaan dileeyahay sida uu xisbigii wadani soo dhigay sida dhibaca roob loo leeyahay Burcana soo dhigay sida dhibaca roob gudoomiyaha golaha dhexe afayeenka hogaamiyaha xisbiga wadani iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbigaasi oo iyaguna hadalka qaatay ayaa si diiran u soo dhaweeyay musharaxiintani waxaana kamid ah hadaladoodii wada adag baa inaga horeysa waxaan rajaynayaa inaynu farsamo tabiya xeelad waxaynu haynaba inaynu isticmaali doono taageerayaasha wadani waxa la inooga baahan yahay inaynu codka ka shaqeyno min ururintiisa ilaa codaynta waxay Burco soo xushay rag badan oo sharaf leh oo golaha deegaanka iyo baarlamaanka matalaya kalsooni baanu ku qabnaa kartidooda aqoontooda iyo waayo-aragnimadooda dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani kuwa halka joogay iyo kuwa saxaafadda kala socdaba waxaan ku baraarujinayaa u soo jeedinayaa inay isbarbar taagaan codkooda ugu deeqaan qof walibana qofku ka wanaagsan yahay doortaan waxaan xusayaa in kaalinta koowaad hawsha xulista musharaxiinta gobolada in kaalinta koowaad uu galay gobolka Togdheer waa gobolkii ugu horeeyay ee soo dhameystira musharaxiinta waxaanu caawa halkan la soo garabkayga taagan 43 musharax dhammaan 43 mudane waanu idinka gudoonay
musharaxiinta shacbigu waxay ka filayaan inay isbeddel keenaan. maxaa la bedelayaa? waa la bedelayaa adeega bulshada oo liita, cadaalad darro dadku tirsanayo. isbeddelkaa waxaad laga rajaynayaa oo shacbigu ka doonaya waa xildhibaanada halkan taagan iyo kuwa kale ee ka sharaxan dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, telefishinka Saab, Burco. Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan, wararka telefishinka Sahan, magaalada Burco.